السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو ودا ولا ليال مقاعيق عبد الله محمود ما أنت وحين قاعدين إن عشر كين كوي تمناد ما أنت وحكو سابسين هاي قابكي علابتا ليسكا كوجدو كوليسكا رئيسنايد أما برودكتي أجديسي قيب كميدا أدوغا سار الهيد أما شيء أدوغا سار الهيد واحد قديسي شيء كميدا أدوغا سار الهيد ومثلا شيء أجديسي أو دعي بعرفت أنا دوحوي ليسكي كسادو ما دام الدكان كينا عاد أما قوبتي كرحسنا عاد كغاديس ما دام وحي أي دعين أوكي سيدو كلا وحين قادنينا قابكي فندر أما سبلاير عاد ألابتو وغسو قادن جدي وعاد كوريكتو قولا كلا عاد وريكتي ساد مركا فندركي أما سبلايركي وسنا ميشا وغسار لهايد هودا وغسار لهايد سانو وحوي كوسو نقنقونو اوكي انو balko horeyno qaabkii alaab ku taala dukaanka ama waxa way goobtaada ganacsi aad uga saar lahayd listigaaga quickbook okay marka ugu horeysa waxaad tagaysaa list baad ku dhufanaysaa kadib waxaad ka tagaysaa item list waa ka tagaysaa khaanadana ku soo baxaysa hada company-gan kaamil wuxuu gadaa baastada bariiska iyo kalluunka matalan hada kalluunkii oo kala waqtigiisii dhacay oo waqtigan loogu talagalay baa la dhaafay marka waxaan rabaa inaan dukaankiina maadaama aan ka saaray waxaan rabaa inaan quickbook-ga listigiisana aan ka saaro okay waxaan dhahayaa waan ku dhufanayaa kadib waxaan dhahayaa laba mid baan sameyn karaa inaad inactive ka dhigto aad inactive ka dhigto inactive marka waxa uga dhigaysaa hadii hawlo kale ay jiraan oo kale to inactive ka dhigaysaa oo alaabti loo baahan yahay oo aadan rabin laakiin aad asbuuciyadan iyo maalmahan ama bilahan inaad ku walaado hadaa rabto inaad gado aadan rabin waxaad ka dhigaysaa inactive hadaa ka dhigto waxa weeye wixii ka caawinaysaa inactive taasu in marka aad alaabta gadayso aad ka weydo waxa weeye bahalkii aad ka weydo taasina ay muujinaysaa inaan diyaar ahayn alaabtaas oo aadan gadayn laakiin hadii aad matalan aad isaga diiso alaabtii waxa weeye intii ku hadhay oo kaleeto aad iska diisay ama daadisay oo kaleeto waxaad ku dhufanaysaa delete ba ku dhufanaysaa okay markaas aad waxa dhahaysaa make inactive ku dhufanaysaa goorta laakiin nagu ma rabno inaan delete garayno kaliya waxaan sameynaynaa hadaa rabto inaad delete garayso halkaas ku dhufanaysaa hadaad inactive ka dhigayso iyada nafkeeda waxa sameynaysaa waxaad ku dhufanaysaa make item inactive okay make kalluunkii waxa weeye meeshii uu ka baxay kalluunkii meeshii uu ka baxay okay fenderkiina ay tagno fender bay rabnaa inaynu meesha ka saaro isna alaabteena ka qaadano waxaan ku dhufanaynaa fender center bay tageynaa waxaan ka qaadanaa alaabtu waa labada company weeye waa Royal Company iyo Obic Electricity Company weeye waxaan rabnaa inaynu ka wareegno Obic Electricity oo shirkad kale oo korontada soo geliso oo kale aynu u wareegno markasto aynu fenderkeena tagno waxaan rabnaa inaanay ku arkin Obic marka saanay ugu dhufanaynaa oo ku dhufanaynaa kadib waxa weeye waxaan leeyahay delete fender baan dhihi karaa oo saas hawada uga baxaya hadii rabno waxaan leeyahay make fender inactive ka dhig oo waxa weeye waayadan wax alaab ama wax service ay noo qaban doonaan ma jiraan bay la mid tahay marka casharkeenu intaas maanta ka saabsanaa qaabkii alaab item meesha ku yaalay qaabkii aad uga saari lahayd listiga uga saari lahayd maadaama aad dukaanka oo kale ka saaray qaabka iyana quickbook aad uga saari lahayd sidoo kale fender aad alaab ka soo qaadan jiray ama service ku qaban jiray qaabkaasna waxa weeye quickbook aad uga saari lahayd maadaama aad kala wareegteen marka maanta casharkan intaas ku soo koobeena waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.